darnay ku baro afkaaga hooyo kombiyuutarka. waa barnaamijkan ugu talagalnay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed daafaha adduunka ku kala nool ee luqadda Soomaaliga kaliya isticmaasha inay ka faa'iideystaan barnaamijkan. kombiyuutarku waa farsamo gacmeed. waxaan ku dhiirinayaa inaydan ka baqin, hor ugu socda, wax badan oo aad ku falaadid oo hore ugu dhaqaaqdid oo ku dadaashidna dadaalkeeda waad gaaraysaa. casharka aan bixinayaa wuxuu noqonayaa cashar la yiraahdo maanta Defermenting and Optimizing Drive, oo micnaheedu yahay sidii kombiyuutarka faylashiisa kala luluma isugu hagaajin lahaa ama isugu aadin lahaa. badanaa kombiyuutarka markuu culayska ku yimaado aad aragtid, Windows-ku wuxuu leeyahay files isku aadan oo kombiyuutarku uu kusoo kaco. sababtaasaana keenta kombiyuutarku inuu noqdo mid culays ku jiro, haabacsan. marka waxaan kula talin lahaa inaad marka kasta weekii ama bishii ama maalintiiba maalinle badanaa looma sameeyo, laakiin weekly iyo monthly waa loo sameeyaa. haddaa aragtid kombiyuutarkaaga culays ku aragtid, waxaan kaagala talin lahaa inaad ku samaysid defermenting wax la yiraahdo. search tag waxaad tiraahdaa d taabo. halkan waxaa kaaga muuqda Defermenting and Optimizing Drive. waa sidii faylashii kala burburay ama kala fogaaday la isugu soo habeyn lahaa. ku dhifo. aniga cabaar ka hor week ka hor baan sameeyay, welina running waa rangaraysan yahay. saa ula socotaan qayb baa completed ah, waan iska stop gareeyay. laakiin optimize baa leedahay, isku kay hagaaji kadibna analyze garee. waxaa intaa ku dheer option baa jira. optionka sidaa u dooranaysid, change the option marka aad leedahay. halkan waxaa kugu qoran optimization schedule, oo micnaheedu yahay ma weekly baa rabtaa inaad ka dhigtid, fantaxdaana ku dhufanaysaa. ma daily baa rabtaa, ma weekly baa rabtaa, ma monthly baa rabtaa. hadaa og marka kii aad jeceshahay baa ka dhiganaysaa. dan markaa kadib waa choose garaysanaysaa. hadda aniga weekly buu yahay, wuu ii diyaar garaysan yahay, ma doonayo inaan iska bedelo. marka waxaa weeye programkan wuxuu tarayaa kombiyuutarka isku aadintiisa adigoo ka bilaabaya local C adoo ka bilaabaya. saa la aligeed markastoo aad samaynaysid defermenting waxaa ku samayn kartaa waa C. walow ay dhacdo D-na in lagu sameeyo ama B, oo aad markaad aragto culaysku inuu kuu siyaadiyo adoo defermenting ku sameeyay, haddana in dhibaatooyin kale jiraan, D waa ku samayn kartaa. laakiin kan recovery waa kombiyuutarku isticmaalay. haddii kombiyuutarka xumaado, meeshii aad dib ugu noqon lahayd kombiyuutarka kusoo recover gareyn lahayd weeye. iska daa. aad baad u mahadsantihiin dhalinyaro. soo dhawaada dhammaan. waa idin hambalyanayaa. meel fiican ayaan marsiinaysaan. aad baad u mahadsantihiin. thank you very much. barnaamijkan sii subscribe gareeya oo sii share gareeya oo dhammaan dadkeena gaarsiiya. aad baa u mahadsantihiin. you well done. thanks very much.